فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. الحمد لله إلهي بامهد سبحانه وتعالى إنتان علماء الدين iyo akhyaar iyo wax walba isugu jira oo maarataya dadkii Soomaaliyeed qaybihii ay ka koobnaayeen dal iyo dibadba say ku joogan aad iyo aad ayaa Ilaahay ugu mahadinaynaa. waxaan soo dhaweeyaynaa dadka halkaan martida ku ah oo gobolada waqooyi iyo meelo ka sii fog noogaga yimiday. waxaan leenahay meeshan atimaadeen waa gurigiini culimada halkaas ka timiday. ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir badan Allah siiyo. ma doonayo inaan kelimo dheer aan iraahdo sababtoo waqti waa cariiri. meeshan waxa la isugu keenay cilmi baa la isugu keenay, mu'allafaad ayaa la soo bandhigay. ilaahay subxaanahu wa ta'ala mu'allafaadkaas wuxuu nooga dhigi doonaa kuwa mabruugaad ah nooga dhigi doonaa. culimada waxaa ku filan rabbul izza inuu dhahay inma yakhsha allaha min cibaadihi alulamaa. ilaahay adoomankiisa ayuu ka soocay culimada. inamaadaas waxaa la yidhaahdaa adaatu xasriya la dhahaa carabiyada. macnaha waxay ka dhigan tahay cid kalaba ma jirto oo alla ka baqda oo aan culimada ahayn. waa markii lagu sifoobo culimanimada oo caamil la noqdo ayaa waxay noqonaysaa ammaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka ahlul cilmiga ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu amaanay. marna ilaahay dadkii kale ummadii inteedii kale ayuu leeyahay fas'aluu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuun. su'aala dadka ahlul cilmiga hadaada idinku wax garanayna. halkaasna waxa weeye culimadii mujtamaci meeshay ku xireeday oo ay wax ka qaadanaysa weeye. cilmiga wuxuu ka yimaadaa ilaahay taqwadiisa cabsi Allah ayuu ka yimaadaa. maxaa yeelay aayadan dheer oo suuratul baqara ku jirta oo aayadaha quraanka ugu dheer ilaahay wuxuu ku khatimayaa wattaqullaha wa yu'allimukumullah. ilaahay ka cabsada, ilaahay wax uu idin barayaa. marka qofkii caalima oo cilmi bartay funuunta culumta bartay ee wax alifay ee ummadda u faa'iideynaya waa qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baqay weeye oo cilmigiisa uu faa'iidada yeelanayo. bacdul mufassiriin waxay ku fasireen aayadaas wa yu'allimukumullah waxa weeye cilmul faydul ilaahi yaa la yiraahdaa. wixii sheekhagu ku baray in ilaahay ka siiyo anwaar iyo wacnaabo maaratay fuyuulaada ilaahay uu ka siiyo oo quraankii iyo axaadiistii iyo culumtii dhamaanteed faham oo daqiiqada sida inta wax aliftay oo hadda maanta waxa weeye aynu ka xusayno culimadii Soomaaliya oo kamida mujtamaca caalamka islaamka kamida. culimada waxa weeye waxa kale oo maaratay sharaftooda ay tahay inay yihiin mar walba wax caalamka ku nool min ahdi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallama saxaabadii taabiciintii culimadii islaamka oo adduunkan soo maro ajiladahay. waxa uu dhahay Abu Darda al ulamaa baaquna ma baqiya dahru yawda. culimadu baaqi way mar walba ay taagan yihiin zaminku intuu joogo adduunyada aan la duubin oo caalamkan uu taagan yahay ilaa an yarisullaahu al-ardha wa man alayha. koonkan intuu uu taagan yahay culimadu way joogaan oo dhahay. wixii zamin fog joogay iyo wixii zamin soka jooga iyo zamin dhax wixii joogay ilaa adduunyadaanu ay ka dhamaanayso qof kasta oo caalim ah waa uu ku nool yahay. العلماء باقون ما بقي دهر أجسامهم في القبور وأمثالهم في القلوب يوضح.
هذا والله dhimanayaa meeshan oo waxa weeye dadka ajala u taala ummatul muhammad waa dad umri gaaban laakiin umrigeeda ilaahay u barakeeyo umriga ay haysata ayaa wuxuu ka qaalisan yahay dadkii joogi jiray kumanaanka sano iyo boqolaalka sano joogi jiray waxay ku heleen waa nabigeena kaleey salaatu wasalaam oo ilaahay khalqiga uu ka fadilay jismigoodu qubuuraha ayuu ku jira haw dhahay laakiin amsaashooda suuradooda ayaa dadka qulubtiisa ku jirta waxaan xasuusanaa annaga waxaan nahay maaragtay madhab ahaan shaafici ayaan nahay imaamuna ashaafici wuxuu dhahay laa khayra man laa yuhibbu al-ilma u dhahay khayr mala ayuu dhahay qofkan cilmiga jeclayn ولا يكون بينك وبينه معرفة ولا صداقة نوضة قفك عن علمك جعلين وان دين تبرنين وخيره ليها مجرتوضة ارتكو قفك وحبروايا اسقو هليكرا فرصته هليكرا إنك صون إلهي أقوان تدتك كسمين إمامنا الشافعي وهو كأنفيه إنه خير ليه هبا هذا وذوك سيدري قفك إيا أذيقه ييسان إذن نحمرن وح معرفة iyo wax saaxiibnimo marka taas waxa weeye sharafta culimada ayay tahay iyo cilmiga marka insha Allah ta'ala ilaahay idankiisa waa soo koobayna hada wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh